sheekadan kala maana markii aad maqashiin maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino warnimayo dhacdooyinka argagaxle waa soo badanayaan sarkaal boolis ayaa degmada Xamar Jajab asoo meeyda lagu arkay shalay asiga isdilay ayaana dadka qaar yiraahdeen dad kale badan waxay yiraahdeen waa la dilay isma dilin guri dawladda ay leedahay la yiraahdo ka hor ka guur asna wuxuu yiri meel uga guur ma hayo marka magaaladan dhacdooyinka foosha xun way ku soo badanayaan war hadda guri dawladeed ka guur ma daldalada ku xig warnimayo waxaan u malaynayaa arrintii Jamaal Qashiyo kala Xamar ka bilaabay askariga ciidanka boolis ka tirsan meesha lagu dilay waa wadada dabka askari kala dilaana la yiri war madaxweyne xaaf oo dhuusmareeb ku laabdo wuxuu yiri si degdeg canshuurta loo bixiyo cid noo maqan ma lehe war meesha waa iska fadhidaane deegaanka la yiraahdo af urur oo ka tirsan gobolka bari al-shabaab ayaa la wareegay war xagee ka baxday baaw shabaabku waa iska celinayna war abdheed ma tihiin markii ugu dambeysay madaxweyne xaaf madaxda maamul goboleedyadu isugu yeeray dhuusmareeb war adinkan dhax ka dhaxsane madaxweyne Sayid Sheekh Axmed Dhuxul wuxuu yiri qaacida aan shabaab ka diidnay filla Soomaaliya kama yeelino anigu bil dhan ma aanan quraacan war quraacad sheegaysaay anigu bil dhan qadama arag war bishaas waajib ay ku heedo midowrada ay ku amartay war nimayow ilaahu aan wasiirkooda soonki waa ku celisna dhihin أنا وابكول يا بني قشكي امتحانك ما اسكو ديديني ورور ما هيسانه امتحانك دولة قشكي سلهلي رجي بحيبة مقعدة لهلي وعينك ليهين مستر فيسبوك كابتن واتساب انجنير الانستغرام جنرال تويتر لما حديك لايمو تركاز سري PDF لما انت قلنا حرق من شن مع الموضة الله حكم لها بيكفكتين ور هذا الدولة ماشي لقرب الدنبيلياش انترنت كاين يحرته هل ويلا ورياه سوحرت انت امتحانك سعودك انا سكرادة اتينا انت اسم ياسين كيفنا هل سين ياسين يوي ولما ياسين قرأت بوته ورنيو ما ويلي ذاك معانا كلا وريق الصومالي ذا مقدشكم اي كايانتا حتى كينيا سياسي تقوصوك الوريقيا مقدش انا دب له سعلنيا ورورك هذا ما فاهمينه لين نودي انه لك ترسنا ايا دمعين ولا ولي كارن نقضو مركز عيلك لا قادي اول نوحوها حبين كترسين قدق اسكارسينتا حزب السياسه وكبيري مركز انا ودي انه قرف اي وسيس ورلانك هلالك قادي هذا لته ما دي لك قاداي تركي جري مسروقي warninka cali shaam ayaa la yiraahdaa Mareykanka uu jooga oo kaalay geel sumad islaameed la mid geel nabad nolol ku soo daray warwar ma heesaane xaaladda gobolka Hiiraan waa qasan tahay madaxweyne waarana wuxuu magacaabay gudoomiyihii afraad ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo shalay hal intaan xilka laga qaadinay wuxuu yiri madaxweyne waare cadaalad darro ayuu gobolka Hiiraan kula dhaqmay lacagtana waa ka urursadaa waxna uma qabto war dawladaha dhan dadka canshuurta waa ka qaadan kumana soo celshaani muxuu kala biyay madaxweyne waare warkayaga dhaxgalay Yuusuf Dabageed waxa kale oo yiri si madaxweyne waara ka madax banaan ayaan gobolka u maamulaynaa kadibna wareegtadiisa xilka looga qaaday ayaa soo baxday wuuna diiday wuxuu yiri xilka leegama qaadi karo madaxweyne waarana xafiiskuma leh gobolka Hiiraan haddana nimanka gobolka Hiiraan xaaladiisu waa qasan tahay war Hirshabelle waa laba gobol madaxweyne waara afar mar uu gudoomiyaha gobolka Hiiraan ka qaaday xilka gobolka Shabeelle dhaxana hal gudoomiyaha wali madaxweynaha la shaqeynay aan helan yeesman sidis bihilka gaalow ma jara war waa rajo waxaad sheegaysaan magaalada Muqdisho waxaan uga baahanahay mas'uul ninkii soo magacaabay dhaliilihiisa sheega yaa ino baangni shibto hamiin lisaahilku qararafna noo soo fadaas ma magal fayle warnimada booliska warka ma haysaane waxay soo bandhigeen nambarka gurmadka degdega ee 991 waxa si uu yaabadna ninba Facebook wuxuu ku soo yiraahday maxay 991 nooga dhigeen ma waxay xasuusinayaan 1999 nambar kale miyay waayeen buu yiri warmada isaaqo horta xudur ya baydhabo ma la isku furay buda madi horeba ma la gabne war koonfur galbeed kuma weydin meesha foolnayso waa Jubbaland doorashada loo tafiixidinaya xilwaanadii Jubbaland waxa la yiri Muqdisho Kismaayo tartan loo jira marka waxaan ka cabsanayaa in Muqdisho Kismaayo laga dul qaado buu ala laga soo xilay xilwaanada anigu waxaan la yaabanahay ninka musharaxiinta kamida oo yiri qabiil kasta ay saddex nin hay keensado ninkii dooran lahaayeen ka xulanaya kulay meel laga soo xulaba
xildhibaan Soomaaliyeed muran iyo qayle iyo mooshin waa ka diyaar warnimada war ma haysaane dalalkii East Africa dariska aanu ahayn waa soo durkayaane dad miyaanan ahayn daandaansi badnaase war adiga laftaada war haynine Kenya intaan Soomaaliyeed waa naga faa'iideysatay waxayna iska soo daba saaraysay culaysyada siyaasadeed oo Soomaaliya ku hayso Ethiopia la yaabayo qariirada caalamka waa naga saartay marka waxaan la yaabanahay dawladda Soomaaliya ilaa hadda hal war oo lagu qanca kama soo saarin markii ugu dambeysana madaxweynaha Soomaaliya Ethiopia beerka falanay beertu Ethiopia haday ku taalo madaxweynuhu la falay beerta Soomaaliya iskale ma ka yeelayno Ethiopia geeska Afrika inaga ka talina miya aroosaas ma ihina waxay qariirada naga saartay bad la'aanta ay yihiin is agsooyina baday naga rabaan warnimayo aniga Kenya waxaan leeyahay bahari yeeto siyo yako Ethiopia waxaan leeyahay yalla midistana istawna bitay dhulkayga qaata miyaad leedahay noo sheeg waxa tiri mashtalate war ma haysaan aniga war idin ka dharjinaya jacbur gabaya anigoo yar baan aqal ku ahaayeen waligeyba waa tirina qinsha ka daba dheere balan soo fato maanta waad ku cayilaysaan ma mucaaradee dawlad waan yara dhaliilaaye runta la isku sheegaana waa ay fadeexade maalmahan kuma sii jirto aamus baa timide hayeeshee sabeen lama rabe wees casilayay asagay u taala ninkii cildi birayay mana raba in la soo xiro waan cabsanayay hadii la qasbayana xabsiga wees ka galayay waana qodob dastuuriya inaan kala xishoonaay laxdu qowday waa la arki jiray taniisa waa nayle hasha inay ku jeesay rabtaa aana beeshadu ka ashada hadaad leedihiin mooyisay tahay musuq maasuqana xoolaha loogu dawgalay qaran dubis inuu geelu yahay horaba loo sheegiye bangigana dameer baa u dhacay caada qaata ukuntuna sacay nuugtay baa loo maxkamadayne digaagii akoonada jabsaday waa la soo xiray imtixaanka waxarii fashilay boota lagu laayay riyii fakaday baan musharcidina siinayne madaxdana xaraaqoodu waa sii darsanayaay intaasan ku soo koobaya ayaanan sii badin waaba dheereysay maxaa soo koobtay war gabaygaada waa xanaaqsanaay madaxweyne xaaf miyaa ku soo dhiibay warniyo gabaygaada hay'adda caafimaadka duulka ma dhageysato waxayna tiraahdeen dadka aan wali guursanay iskaabulada waa in lagu daraa ururka naafada adduunka waana naafo hadda wixii ka dambeeya warnimada waxaan ku riyooday dawladda Kenya oo tiri Soomaaliya qaadka ka gadan mayno meeshii rabaan u doonteen war wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma waxay ku riyootay ayadoo badda Soomaaliya moot iskaafa ku wado oo timaa ay dabeesho ruuxayaan war islaantaas awalay timaa islaameed ku riyootay haddana ma bad islaameed ay la dul mareysay ku riyootay war wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica haday riyooyinka badan joojiyayso wallahi waxaan u sheegayaa gabadhan laga dhigay duqa magaalada Beledweyne Mombasa la wareegtay gabarisay duq ku noqon kartaa ariya war maya waa duqda magaalada Beledweyne warniyo ani Kenya waxaan ku talan lahaa intii hadhow qaramada mid ay u dacwoon lahayd hadda dulmiga ha joojis war tardaarankaas Kenya waxaan ugu dari lahay annaga Soomaali baan la yiraahdaa dagaal waa bilaabay naqaana ee ma joojin naqaano wiiwin Soomaali powerful siyo nikikuyina jaluwa warnimayo laga bilaabo saacan waxaan mamnuucaya daadaansiga shisheeya war walaal mamnuucsan yaalan hadii lama baas boora weeltay war yaaya lagu kala kaxeeyo meesh Abdullah Aw sawbaxani war Abdullah Imran laga taga cadaalad Allah idin siiyay